kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal waa duhurnimo khamiis ah 16 bisha December ee sanadka 2021 idaacada duhurnimo waxay idin la socodsiin doontaa anigoo ah Kawthar Maxamed Cabdullaahi qodobada aad ku maqli doontaana waxaa kamid ah tirada dadka qaadanaya talaalka COVID-19 ee gobolka Waqooyi Bari Kenya oo hooseyso sababtu maxay tahay laba shay baas ku tagtay annaga hadaan gaarisa ama gobolada Waqooyi Bari abaar baahan baa dadka haysay waqtiga talaalka aan bilaabayna midda labaad waxaa jirta Soomaalidu waxay qabaan talaalkan inuu waxyaabo badan u keenayo marka sababada awgeed bay qaadashada ugu yartahay hogaamiyayaasha Yurub oo lagu wado inay Ruushka ugu digaan weerar uu ku qaado Ukraine wariyihii su'aashiisa ay horseeday inuu burburo darbigii Berlin oo geeriyooday qodobadaas oo faahfaahsan iyo wararka ciyaaraha ayaad ku dhageysan doontaan idaacadan duhurnimo oo uu soo saaray Ciise Xaaji Cabdulle balse waxa intaas oo dhan ka horeynaya wararka caalamka ee BBC-da waxaana u diyaar ah Fartuun Ismaaciil Axmed mahadsanid Kawthar shirka ugu dambeeya ee sanadkan ee midowga Yurub ayaa ka socda Brussels iyadoo waxyaabaha ugu horeeya ee miiska saaran ay ka mid tahay hanjabaadda Ruushka ee Ukraine ka hor wada hadallada hogaamiyaha Jarmalka ayaa Moscow uga digay carqaladeynta xuduudaha dariskiisa Ruushka ayaa tobanaan kun oo ciidan halkaasi geeyay balse waxa uu sheegay inuusan qorsheynayn duulaan waxa uu ugu yeeray damaanad qaad ammaan oo ay ka mid tahay in dalkaasi dariskiisa ah laga mamnuuco in uu ku biiro gaashaanbuurta NATO kulan gaar ah oo ka dhacay Brussels oo uu madaxweynaha Ukraine la yeeshay xogayaha guud ee NATO Jens Stoltenberg ayaa uga digay Moscow in uu qaado tallaabo military oo dheeraad ah oo u dhow Ukraine This build-up has no justification. It is provocative. ciidan ururintan qiil ma leh waa daandaansi waxay khalkhal gelinaysaa amniga Yurub waxaan Ruushka ugu baaqaynaa inuu diblomaasiyadda dib ugu laabto oo uu xiisada dejiyo uuna xushmeeyo madax bannaanida iyo sharafka dhuleed ee Ukraine wixii duulaan dheeraya ee ka dhan ah Ukraine waxay yeelan doonaan cawaaqib ba'an Further aggression against Ukraine will have severe consequences. aqalka Kremlinka ayaa ku tilmaamay ceerinta laba diblomaasiyiin Ruush ah oo ku sugan Jarmalka mid aan saaxiibtinimo ahayn waxa uu sheegay in ay ka jawaabi doonaan arrinkaasi labadan qof ayaa lagu amray inay ka baxaan dalka kadib markii ay maxkamad ku xukuntay in Moscow ay ka dambeysay dilkii Berlin loogu geystay qof ka tirsan jabhadda Chechnya hoos u dhac kale ayaa waxa uu ku yimid qiimaha lacagta liiraha ee dalka Turkiga madaxweyne Erdogan ayaa ku adkaystay in aan sare loo qaadin heerka qiimaha dulsaarka inkastoo sare u kaca oo uu marayo in ka badan 20%. Bangiga dhexe ayaa lagu wadaa in uu maanta ku dhawaaqo go'aankii ugu dambeeyay ee qiimihiisa dulsaarka kumanaan kun oo qof oo reer Filibiin ah ayaa ka barakacay guryahooda halkaas oo ka dhacay mid ka mid ah duufaantii ugu xooganeyd ee sanadkan la arko duufaantan ayaa waxa ay wadataa dabaylo aad u xoogan iyo roobab dekadaha dalkaasi ayaa la xiray sabab la xiriira duufaan kale oo laga cabsi qabo ugu dambeyn 5 caruur ah ayaa ku dhimatay shil naadir ah oo ka dhacay dalka Australia caruurtan ayaa ka soo dhacay wiifow ama leexada caruurtu ku ciyaaraan oo 10 mitir hawada sare u gashay 4 caruur oo kale ayaa lagu daweynayaa isbitaalka kadib markii ay leexada ka dhaceen iyadoo 3 kamid ah ay xaalad halis ah ku jiraan warkiina waa inaga intaa Kawthar aad baad u mahadsantahay Fartuun Ismaaciil ay ahayd oo wararka caalamka ay nala socodsiinaysay dhageystayaal markana qaybaha kale ee idaacadeena duhurnimo waa tahay duhur wanaagsan mar kale dhageystayaal aan ku bilaabnay waxaa lagu soo waramayaa inay aad u hooseyso tirada dadka qaadanaya talaalka looga hortago fayraska corona ee gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya wasiirka caafimaadka ee magaalada Garissa ayaa BBC-da u sheegay in hoos u dhacaasi loo aaneynayo habaartii ku dhufatay gobolka iyo dadka oo fikrado khaldan ka aaminsan qaadashada talaalka Roble Saciid Nuunow wuxuu iigu waramay khadka telefoonka waxaana marka hore weydiiyay bal inuu inoo faahfaahiyo qaadashada talaalka ee magaalada Garissa
kawtare habka qaadashada tallaalka COVID-19 waxaa waaye annaga xarumaha caafimaadkeena oo dhan baa lagu bixinaya tallaalka muddo hadda waqti laga joogaba tallaalka waan bixinayna. maxaa lagu qiyaasi karaa marka tallaalka idin soo gaaray inteesay dadku qaateen? tallaal wuu noo yaalaa, tallaal nagu filan wuu noo yaalaa. dhibka yaalla waxaa waaye dadkii baa tallaalka qaadan haynin. ilaa hadda waxaan tallaalnay 23,844 qof ee tallaalka qaadatay oo tallaalka labada nooc u kala dadna waxay qaateen AstraZeneca oo 2 jeer la qaadanayay, qaybna ay qaateen 14,097 qof ay qaateen AstraZeneca. Johnson & Johnson oo ayadana noo taalo oo gadaashan dambe ka imaatay hadda waxaa qaadatay 9,747. xisaabtaa isku darsato 23,844 qofaa tallaalka qaadatay. waxay u kala yihiin 13,694 waxay yihiin rag, 10,150 dumar bay yihiin. dadka ayaanan qaadanayn tallaalka ayaa tiri maxay tahay sababta ay u hooseyso marka tirada dadka qaadanaya tallaalka COVID-19 ee Gaarisa? laba shay baa iskugu kaantagtay. annaga haddaan Gaarisa ama gobolada waqooyi badi ama Northern Kenya abaar baahan baa dadka haysay waqtiga tallaalka aan bilaabayna. dadka waxa muhiimka u ahaa markaa waxay ahayd nolosha xoolahooda iyo naftooda inay badbaadiyaan, annagoo isku daynayna annagana cudurka ka badbaadino. laakiin waad ogtahay sheekada waxay ahayd ninkii labada fallaar ku taalay inuu dhahay midda igu daran waa midda salka iga taalle ha liiga siibo intii midda isha lagu. taas waxay naga hakisay gaaritaankii dadka aan gaari lahayn oo aan tallaalka u siin lahayn. midda labaad waxaa jirta dhaqan ahaan Soomaalidu waxay qabaan tallaalkan inuu waxyaabo badan u keenayo oo waxyaabaha ee baraha bulshada ay ka arkeen, marka sababada awgeed bay qaadashada ugu yartahay. marka ka wasaarad ahaan maxaad samayseen si loo xaqiijiyo in dadku qaataan tallaalka? horta wasaarad ahaan annaga waxaan dadaalayna horta meel kasta oo xarunteena ku taala, khaasatan istaalada weyn inuu tallaalka yaallo sifa dadka ay tallaalkii meel fog Gaarisa ugu soo raadsadeen. midda labaad waxaan sameynay wax la dhaho outreach. waxaan dhaqaatiir ayaan bixinaa oo tallaalkii wataan oo meelaha fogfog oo hard to reach areaska tagaan oo tallaalkii dadka u geynayaan. laakiin waxaas waxa ka muhiimsan fikradaha dadka ka dhaadhacsan in laga saaro. wacyigelin badan baan samaynhaynaa sida dadkii u qanciyo tallaalkan inuu waxbanan u keenaynin, oonan uu fiican yahay in la qaadan karo, ayna danta tahay in cudurkaneeda lagaga badbaado. waxaad tiri dadka waxyaabo kale ayay ka aaminsan yihiin tallaalka. inta aad ku guda jirteen howlaha wacyigelinta, dadka markaad waraysateen ama aad la sheekaysateen maxaa gaar ah oo ay idin sheegeen? horta waxay ka qabaan waa wixii maalintii koowaad oo cudurkan corona uu soo baxay tallaalkiisa bilowdeen. midda koowaad waxay ka qabaan inay dhalmada joojinayaan oo u keenahayso. dhibka labaad ay qabaan waxay leeyihiin 2 sano gudaheeda qofkii haddii tallaalkan qaata uu ku dhimanaya. waxyaabo badan oo baraha bulshada laga sheego ayay ka dhacaan. dad qaarkii waxay dhahayeen xanuunyo badan kale oo kugu kordhinaya, laakiin haddii aan u sheegnay dad badan baa hadda waa inaad tarada hadda afiirinaysa mooge bil gudaheed oo Johnson & Johnson aan bilownay waxaad arkaysaa 9,000 oo qof inay yimaado. wacyigelintiin baan ku sii wadnaa, dadaalkeennana waan sii wadnaa. hadda nooca cusub ee coronavirus ee Omicron ayaa dunida ugu faafaya si xawli ah. sidee dadka looga dhaadhicin karaa inay qaataan tallaalkan looga hortago xanuunka coronavirus? wadada ugu horta cudurkan hadda Omicronka aad buu halis u yahay. halistiisana waxaa waaye cudurkii hiryaashii hore waxay ahayd in astaamo badan oo lagu garan karo qofkii inuu qabo COVID-19 yaa jirtay. laakiin cudurkan hadda wave-kaneeda Omicronka waxaa waaye astaan ma laha ilaa baaritaanka gudaha oo limooni ahaan lagu baaro unbaa lagu ogaan karaa. qannadii ma laha, waxyaabo badan ma laha. waxaa jiraan aad ku arkaysaa inuu qabo madax xanuun badan, qoorta ku xanuunto, dhinaco ku xanuuno, limooni ahaan oo lagu qabto, laakiin toos looma garan kara ama qofkii baaritaanka hataa laguma arki karo. mideeda labaad oo ugu sii halisan qofkii tallaal qaata hataa uu ku dhacaya inkastoo uu halis gelinayn, laakiin dadkan tallaalka qaadanin wuxuu qabaa dhimasho badan buu leeyahay. sidee marka dadka looga dhaadhicin karaa inay tallaalka qaataan? dadka wacyigelintii unbaan sii wadaynaa, outreachkii iyo wacyigelintii unbaan usii wadaynaa sifa aan annaga dadkii u badbaadino. laakiin wax hadda dheeraad oo aan ka bedelan aan samaynayno ma jirto, because cudurkii wuu nala sii joogay. dadaalkii waa unkii waxaana dheeraadka awnayna wacyigelintii aan samayn.
roble siciid nuuno wasiirka caafimaadka ee magaalada gaarisa ee gobolka waqooyi bari kenya ayuu kaasi ahaa oo ii waramayay aan facebooka fursadda siiyo dhegeystayaasheenna waxay qodobkaasi ka yiraahdeen. cabdisalaan cali oo jooga degmada camaara wuxuu leeyahay tirada dadka qaadanaya tallaalka covid-19 ee waqooyi bari kenya runtii waxa ay muujinaysaa inaysan dadku haysan wacyigelin ku filan, taasoo micnaheedu yahay inaysan ka dhaadhacsaneen inuu leeyahay tallaalku faa'iido. waxaana ku baaqayaa in dadka la siiyo wacyigelin ku filan si ay tallaalka u qaataan. faarax maxamed oo caynabo joogana waxa uu leeyahay tirada dadka qaadanaya tallaalka covid-19 ee hooseysa gobolka waqooyi bari kenya waxa ay keeni kartaa halis ah in cudurku haleelo dadkaasi aan dawada qaadan, waana mushkilad weyn oo ay habboon tahay in wax laga qabto. waa ay mahadsan yihiin. waxay hayeen qaar ka mid ah dhegeystayaasha BBC-da ee facebooka. markana sida warka caalamkaba aad ku maqlayseen, dowladda ruushka ayaa soo gudbisay tala soo jeedinta damaanad qaadka amniga ee ku aadan sii ballaarinta hisbahaysiga NATO ee bariga. maamulka Moscow ayaa doonaya damaanad qaadka ammaan ee Mareykanka iyo NATO in aanan la ballaarin oo aanu geyn doonin halkaasi hubka qaar ee dalalka Ukraine iyo sidoo kale dalalka la leh ee xuduudda Ruushka. madaxweyne Vladimir Putin ayaa la sheegayaa inuu doonayo in si degdeg ah ay u bilowdaan wadahadalada arintani ku saabsan. Saciid Xasan Anteeno ayaa faafahinta warkaasi inoo haya. hogaamiyaasha Yurub ayaa la filayaa inay uga digaan Ruushka inuu weerar ku qaado dalka Ukraine ka gadaal markii ciidan tiro badan uu soo dhoobay soodinta uu la wadaago dalka Ukraine. qoraalka loo gudbinayo Ruushka ayaa lagu falanqeynayaa shir madxeedka golaha midowga Yurub kaasoo ka socda haatan magaalada Brussels ee dalka Belgiumka, taasoo noqon doonta digniinta ay u gudbinayaan reer galbeedka. Ruushka Kremlinka ayaa iska fogeeyay inuu qorsheynayo inuu weeraro Ukraine oo uu ku qaado dagaal qarsoon. dhanka kale Ruushka ayaa ka dalbaday Mareykanka inuu bixiyo damaanad qaad buuxa oo dhanka amniga ah. sirdoonka reer galbeedka ayaa rumaysan ilaa iyo 100,000 oo askari oo Ruush ah inay ku sugan yihiin meel u dhow xuduudda Ukraine. mas'uuliyiinta Ukraine ayaa sheegay in xukuumadda Moscow ay qorsheynayso weerar military dhamaadka bisha January ee sanadka soo socda, inkastoo saraakiisha Mareykanka ay sheegeen inaanay cadeyn karin in madaxweyne Putin uu gaaray go'aan iyo in kale. arbacadii madaxa guddiga Yurub ee dhanka fulinta ayaa mar kale ku booriyay dowladda Ruushka inay dejiso xaaladda. Ursula von der Leyen ayaa sheegtay inay cunaqabateyn dheeri ah la diyaariyay, taasoo lagu beegsanayo dhammaan dhinacyada ku lugta leh mashaqadan. dowladda Ruushka ayaa ku wareejisay tala soo jeedinteeda damaanad qaadka amniga ee ku aadan isballaarinta bariga ee isbahaysiga NATO. ergeyga madaxweynaha Mareykanka ee Karen Donfried. maamulka Moscow ayaa doonaya damaanad qaadka Mareykanka iyo NATO oo ah in isbahaysiga militariga aan la ballaarin oo aanu geyn doonin hubka qaar dalka Ukraine iyo dalalka kale ee xuduudda la leh Ruushka. madaxweyne Vladimir Putin ayaa la sheegay inuu doonayo in wadahadalada arrinta ku saabsan inay si degdeg ah u bilowdaan. afayeenad u hadashay wasaaradda arrimaha dibadda Ruushka Maria Zakharova ayaa tilmaamtay in dagaal lagu qaado dalka Ukraine uu keeni doono cawaaqib xumo aan la mahadin. заместителем министра иностранных дел России Сергей Рябков. maanta intii uu socday shirkii u dhaxeeyay wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda Ruushka Sergey Ryabkov iyo ku-xigeenka xogayaha arrimaha dibadda ee arrimaha Yurub iyo Eurasian Karen Donfried, howlaha ammaanka ee Ruushka waxaa loo gudbiyay dhanka Mareykanka. waxaa dhowr jeer ka hadlay madaxweynaha dalkeena sida ku xusan war-saxaafadeedka wasaaradda arrimaha dibadda ee 10 Diseembar soo baxay laguna daabacay barta rasmiga ah ee wasaaradda. maanta soo jeedinadaas waxaa lagu qeexay warqadda si rasmi ahna waxaa loogu gudbiyey saaxiibada Mareykanka. xiriir ayaana inoo socda американским партнером. находимся с ними в контакте. ilaa iyo haatan ma cadda cunaqabateynta ay ku hanjabayaan reer galbeedka waxa ay tahay iyo tallaabooyinka ay qaadi karayaan. mid ka mid ah bartilmaameedyada ayaa noqon karaya Nord Stream 2 oo ah dhuun gaas oo cusub oo ka timaada dhanka Ruushka, taasoo tagtay ilaa iyo Jarmalka inkastoo aanay weli si rasmi ah u howlgelin. Saciid Xasan Anteeno aad ayuu u mahadsan yahay. walaalkaan naga dhageysanaysaan waa laanta af Soomaaliga ee BBC-da. BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba. waa tahay wararkii cayaaraha ay noo soo socdo, balse markan wariye u dhashay dalka Talyaaniga oo la yiraahdo Riccardo Ethman oo weligiis lagu xasuusan doono su'aashii saacado gudahood ku bedeshay taariikhda adduunka ayaa geeriyooday isagoo 92 sano jir ah. haddaba kumuu ahaa wariyahaas? su'aashuse maxay ahayd? waxaa sheekadaasi la socday oo goor dhaweyd iiga waramay wariyaha BBC-da ee Cabdinaasir Saxan Saxo.
kowthare waa mahadsan tahay. waryahani waxaa lagu magacaabaa Ricardo Ehman, wuxuu u dhashay dalka Talyaaniga, wuxuuna u shaqeynayay wakaaladda wararka ee dalka Talyaaniga ee ANSA sanadii markay ahayd 1989 xilligaasi oo ku sugnaa magaalada Berlin dhankeeda ama bariga Jarmalka wixii loo aqoon jiray. halkaas uu kaga qayb galayay shir jaraa'id oo ay qabanayeen madaxdii shuuciyadda ee Jarmalka bari, waana meesha ay wax ka dhaceen markii asaga uu weydiiyey su'aal bedeshay taariikhda adduunka oo dhan, isla markaasina ay ka dhalatay falcelin saacado gudahooda oo horseeday inuu burburo darbigii Berlin ee 40 sano dhisnaa. waxaana xusid mudan in shirkaasi jaraa'id toos looga daawanayay idaacadaha la iska arko ee dalkaasi, isla markiina su'aashiisa waxay keentay jawaab lama filaan ah oo ka soo baxday madaxdii markaas shirkaas jaraa'id qabanaysay. marka shirkaas jaraa'id maxaa ka dhacay Cabdinaasir? shirka jaraa'id wuxuu iska ahaa shir jaraa'id oo iska caadi ah oo aan xiiso badan lahayn. guddiga sare ama golaha dhexe ee shuuciyadda ee gobolkaasi Jarmalka bari ayaa shir yeeshay kadib maalmo iyo toddobaadyo barnaamijyo ay dadka dhigayeen oo ay ku dalbanayeen xorriyadda dhaqdhaqaaqa, xorriyadda hadalka iyo xorriyad badan oo dadka laga xayuubiyey. waxaana soo baxay go'aano lagu qafiifinayo xayiraadihii dadka saarnaa oo dhan. arrintaasi ku sharaxayeen, laakiin waxaa dhacday afhayeenkii golahaasi ganta shoobka la yiraahdo oo aan isaga shirkaasi golaha dhexe ka qayb gelin. go'aanadii lagu soo gaarayna inta badan aanan aad u fahamsanayn buu waryahani weydiiyey su'aal. wuxuu yiri waxaad sheegteen in dhibaatooyin aad ku haysaan dadka oo ay jiraan dhibaatooyin dadka lagu hayo. maxay tahay dhibaatada ka weyn in dadka laga hor istaago inay dhaqdhaqaaqaan oo labada dhinac ay magaalada Berlin isugu gudbaan oo darbiga ku xayiran yahay? wuxuu ku jawaabay afhayeenkii arrintaasi waxaan filaynaa in wixii hadda ka dambeeya iyadoo xayiraad aysan jirin ay meesha ka bixi doonto. su'aal kale uu sii raacsaday oo ahayd goormay arrintaasi dhacaysaa. wuxuuna ku jawaabay afhayeenkii wixii hadda ka dambeeyaba sidii aan lagu burburiyey darbigii dheeraa ee 40 sano dhisnaa ee magaalada kala qaybinayay ay weliba waardiyaasha hubaysan ilaalinayeen. 1 milyan oo qof oo labada dhinac ee magaalada ka timid baa hal mar ku xoontay darbiga oo burburiyeen oo wax kasta oo ay gacanta ku dhigi kareen oo isticmaala dhagaxii shubka ahaa ee darbiga u ka samaysnaa ilaa ay dhulka dhigeen saacado gudahood. arrintaasi oo idaacadaha la iska arka adduunka oo dhan si toos ah looga daawanayay wixii maalinkaasi ka dhacay magaalada Berlin oo taariikhda ahayd. sidaas ayuuna waryahana taariikhda ku galay inuu noqday waryihii su'aashiisa ay horseeday inuu burburo darbigii Berlin. waa tahay Cabdinaasir saxan saxo oo ii waramayay ayuu ahaa. aad ayuuna u mahadsan yahay. weli waxaad nagala socotaan laanta af Soomaaliga ee BBC-da Afrikada Bari. saacadu waxa ay haatan tilmaamaysaa 2 duhurnimo iyo qadar 18 daqiiqo. barnaamijka ciyaaraha tabinta tooska ah ee Sabtida waxaynu idinkugu soo gudbinaynaa ciyaarta dhaaftay, kulanka la isku fardacaynsaday, ciyaarta la isku warmalisanayo. waa kulanka garoonka Elland Road kooxda Leeds United ee ku soo dhaweynaysa kooxda Arsenal oo wacdala dhigaysa isla markaasna kaalinta afraad caadirsatay. ma awooda inay xagsato booskaasi oo ay ugu dambeysay 2019. Leeds United xaaladdu way ku adag tahay. kulankii ugu dambeeyayna Man City ayaa 7-0 ku xasuuqday. ma awooda inay ka soo kabato oo dhibcaha ay ku qaadatay gurigeeda. nagu soo biir tabinta tooska oo soo gali doonta 8 fiidnimo saacadda bariga Afrika oo u dhiganta 5 galabnimo waqtiga London. tabinta tooska BBC. waa tahay isla wararka ciyaaraha aan ku sii soconay ee tababaraha kooxda Brentford Thomas Frank waa Brentford oo ka tirsan horyaalka Ingiriiska ee Premier League ayaa waxa uu soo jeediyey in la hakiyo ciyaaraha Premier League ee toddobaadkan iyo waliba ee isbuuca soo socda sababo la xiriira xanuunka COVID-19. 13 qof ayaa laga helay kiisaska fayraska corona ee kooxda Brentford kuwaas oo isugu jira ciyaartooy iyo sidoo kale shaqaale. talaadadeena soo dhaafnay waxaa dib loo dhigay kulan ay Brentford la lahayd kooxda Manchester United. kulankaasi oo ka dhici lahaa garoonka Old Trafford balse dib loogu dhigay sababo la xiriira kiisaska fayraska corona oo soo badanaya.
waa tahay caawana waxaa jira kulamo ka tirsan isla horyaalka ingiriiska ee Premier League. Leicester City waxay soo dhaweyneysaa Tottenham. ciyaartaasi waxay soo galaysaa saacada Afrikada bari markay tahay 10 habeenimo iyo bar saacadu markay tahay 10 habeenimo ee qadar 45 daqiiqo waa 11 oo ribo dhimanay. Chelsea ayaa waxay gurigeeda ku soo dhaweyneysaa kooxda Everton. Liverpool iyo Newcastle-na waa ay wada ciyaari doonaan. Liverpool ayaana soo dhaweyneysa Newcastle. ciyaartaasina waxa ay soo gali doontaa saacada Afrikada bari markay tahay 11 habeenimo oo gow ah. waa tahay ciyaarihiina halka ay noo joogeen dhageystayaal. markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii baafinta. baafinta maanta waxaa si wada jira stuudiyaha BBC da magaalada Nairobi idinkaga soo tebinaya anigoo ah Faysal Bashaar Aligo iyo Caaisha Saciid Xasan Caashe. mahadsanid Aligo. baafinta ugu horeysa maanta waxay naga soo gaartay Ruqiye Maxamed Jaamac oo joogto Wisil. waxay baafinaysaa Jamaal Maxamed Jaamac waxa ugu dambeysay isagoo ku sugan Itoobiya 2014. haddaba haddii uu maqlay Jamaal Maxamed ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo Ruqiye Maxamed iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Wisil. Muumin Cali aadan oo joogo Boorame waxa uu baafinayaa Dahabo Cali aadan waxa ugu dambeysay iyadoo ku sugan Kenya sanadii 2004. haddaba haddii ay maqlayso Dahabo Cali aadan ama way jirto cid garanayso fadlan warkeeda la gaarsiiyo Muumin Cali aadan iyadoo wixii waraa loo sii marsin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Jowhar. Burhaan Cabdi Cali oo jooga Wisil waxa uu baafinayaa Sahro Cabdi Cali waxa ugu dambeysay iyadoo ku sugan Kenya 2008. haddaba haddii ay maqlayso Sahro Cabdi ama way jirto cid garanayso fadlan warkeeda la gaarsiiyo Burhaan Cabdi iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Wisil. aadan cali macow oo joogo Mahadaay waxa uu baafinayaa Maryamo Cali macow waxa ugu dambeysay iyadoo ku sugan Ethiopia sanadii 2015. haddaba haddii ay maqlayso Maryamo Cali macow ama way jirto cid garanayso fadlan warkeeda la gaarsiiyo aadan cali macow iyadoo wixii waraa loo sii marsin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Jowhar. maxamuud cali geedi oo jooga Wisil waxa uu baafinayaa Wardi Cali geedi waxa ugu dambeysay isagoo ku sugan Koonfur Afrika 1999. haddaba haddii uu maqlayo Wardi Cali geedi ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo Maxamuud Cali iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Wisil. Makaraan aadan Yuusuf oo jooga Cadale waxa uu baafinayaa Ismaaciil aadan Yuusuf waxa ugu dambeysay isagoo ku sugan South Africa sanadii 2013. haddaba haddii uu maqlay Ismaaciil aadan Yuusuf ama way jirto cid garanayso fadlan warkiisa la gaarsiiyo Makaraan aadan Yuusuf iyadoo wixii waraa loo sii marsin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Jowhar. Roobla Nuur Siyaad oo jooga Wisil waxa uu baafinayaa Qaasim Nuur waxa ugu dambeysay isagoo ku sugan Faransiiska 2012. haddaba haddii uu maqlay Qaasim Nuur ama way jirto cid garanayso fadlan warkiisa la gaarsiiyo Roobla Nuur iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Wisil. Mawliid Xuseen aadan oo jooga Boorame waxa uu baafinayaa Yuusuf Xuseen aadan waxa ugu dambeysay isagoo ku sugan Sweden sanadii 2010. haddaba haddii uu maqlay Yuusuf Xuseen aadan ama bay jirto cid garanayso fadlan warkiisa la gaarsiiyo Mawliid Xuseen aadan iyadoo wixii waraa loo sii marsin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Jowhar. Najma aadan Cumar oo joogto Wisil waxay baafinaysaa Hani aadan Cumar waxa ugu dambeysay iyadoo ku sugan Yemen 1999. haddaba haddii ay maqlayso Hani aadan Cumar ama way jirto cid garanaysa fadlan warkeeda la gaarsiiyo Najma aadan iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Wisil. Caaisha Xasan Fanax oo joogta Xaaji Cali waxay baafinaysaa Makaraan Xasan Fanax waxa ugu dambeysay isagoo ku sugan Addis Ababa sanadii 2005. haddaba haddii uu maqlay Makaraan Xasan Fanax ama ay jirto cid garanayso fadlan warkiisa la gaarsiiyo Caaisha Xasan Fanax iyadoo wixii waraa loo sii marsin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Jowhar. Mahad Axmed oo jooga Wisil waxa uu baafinayaa Sokorey Axmed waxa ugu dambeysay iyadoo ku sugan Itoobiya 2004. haddaba haddii ay maqlayso Sokorey Axmed ama ay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda la gaarsiiyo Mahad Axmed iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Wisil. Dalmar Keynaan Mukhtaar oo joogo Balcad waxa uu baafinayaa Mulki Keynaan Mukhtaar waxa ugu dambeysay isagoo ku sugan Uganda sanadii 2011. haddaba haddii ay maqlayso Mulki Keynaan Mukhtaar ama ay jirto cid garanayso fadlan warkeeda la gaarsiiyo Dalmar Keynaan Mukhtaar iyadoo wixii waraa loo sii marsin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Jowhar. Siyaad Cali Cabdi oo jooga Wisil waxa uu baafinayaa Mustafa Cali Cabdi waxa ugu dambeysay isagoo ku sugan dalka Australia 2002. haddaba haddii uu maqlayo Mustafa Cali Cabdi ama ay jirto cid garanayso
fadlan warkiisa la gaarsiiyo siyaad cali cabdi iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay wisil. yuusuf axmed siciid oo joogo wisil waxa uu baafinayaa maxamed axmed siciid waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan Ethiopia diradhaba sanadii 2004 haddaba haddii uu maqlay maxamed axmed siciid amaba ay jirto cid garanayso fadlan warkiisa la gaarsiiyo yuusuf axmed siciid iyadoo wixii waraa loo sii marsin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay wisil. xaashi maxamed kaariya oo jooga wisil waxa uu baafinayaa jamaal xirsi waxa uu wardambeysay isagoo ku sugan Suudaan 1997 haddaba haddii uuna maqlayo jamaal xirsi ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo xaashi axmed iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay wisil. duraan cabdi shire oo joogo wisil waxa uu baafinayaa hanad cabdi shire waxa uu wardambeysay isagoo ku sugan Kenya sanadii 2005 haddaba haddii uuna maqlayo hanad cabdi shire ama bay jirto cid garanayso fadlan warkiisa la gaarsiiyo duraan cabdi shire iyadoo wixii waraa loo sii marsin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay wisil. bashiir xasan yuusuf oo jooga wisil waxa uu baafinayaa saadiq xasan waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan Kenya 2012 haddaba haddii uuna maqlayo saadiq xasan ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo bashiir xasan iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay wisil. muuse abshir cali oo joogo wisil waxa uu baafinayaa nuur abshir cali waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan Yemen sanadii 2001 haddaba haddii uuna maqlayo nuur abshir cali ama bay jirto cid garanayso fadlan warkiisa la gaarsiiyo muuse abshir cali iyadoo wixii waraa loo sii marsin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay wisil. felis xasan yuusuf oo joogto wisil waxay baafinaysaa xamdi xasan waxa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan Mareykanka 2013 haddaba haddii ay maqlayso xamdi xasan ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda la gaarsiiyo felis xasan iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay wisil. mahad aadan cumar oo joogo wisil waxa uu baafinayaa fahmo aadan cumar waxa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan Suudaan sanadii 1999 haddaba haddii ay maqlayso fahmo aadan cumar ama bay jirto cid garanayso fadlan warkeeda la gaarsiiyo mahad aadan cumar iyadoo wixii waraa loo sii marsin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay wisil. jaamac cabdikariim nuur oo jooga wisil waxa uu baafinayaa astur cabdikariim waxa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan dalka Masar 2010 haddaba haddii ay maqlayso astur cabdikariim ama way jirto cid garanaysa fadlan warkeeda la gaarsiiyo jaamac cabdikariim iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay wisil. aamina daahir warsame oo joogto wisil waxay baafinaysaa xadiyo daahir warsame waxa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan Qatar sanadii 2002 haddaba haddii ay maqlayso xadiyo daahir warsame ama ay jirto cid garanayso fadlan warkeeda la gaarsiiyo aamina daahir warsame iyadoo wax waraa loo sii marsin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay wisil. daahir cali faarax oo jooga wisil waxa uu baafinaya suudi cali faarax waxa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan Kenya 2012 haddaba haddii ay maqlayso suudi cali faarax ama ay jirto cid garanayso fadlan warkeeda la gaarsiiyo daahir cali iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay wisil. jamaad xasan salaad oo joogo wisil waxa uu baafinayaa sacdiyo xasan waxa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan Yemen sanadii 2012 haddaba haddii ay maqlayso sacdiyo xasan ama ay jirto cid garanayso fadlan warkeeda la gaarsiiyo jamaad xasan salaad iyadoo wixii waraa loo sii marsin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay wisil. duraan siyaad cali oo jooga wisil waxa uu baafinayaa hani siyaad cali waxa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan Koonfur Afrika 2003 haddaba haddii ay maqlayso hani siyaad ama ay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda la gaarsiiyo duraan siyaad iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay wisil. arda xasan yaasiin oo joogto wisil waxay baafinaysaa xaashi xasan yaasiin waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan Yemen sanadii 2014 haddaba haddii uu maqlayo xaashi xasan yaasiin ama ay jirto cid garanayso fadlan warkiisa la gaarsiiyo arda xasan yaasiin iyadoo wixii waraa loo sii marsin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay wisil. yurub cali faarax oo joogto wisil waxay baafinaysaa maymuun cali faarax waxa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan Itoobiya 1997 haddaba haddii ay maqlayso maymuun cali faarax ama ay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda la gaarsiiyo yurub cali faarax iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay wisil. mudan cabdi cumar oo joogto wisil waxay baafinaysaa safiyo maxamed jaamac waxa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan Kenya sanadii 2011 haddaba haddii ay maqlayso safiyo maxamed jaamac ama ay jirto cid garanayso fadlan warkeeda la gaarsiiyo mudan cabdi cumar iyadoo wixii waraa loo sii marsin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay wisil. baafinta ugu dambeysana maanta waxay naga soo gaartay yaxya axmed cali oo jooga wisil waxa uu baafinayaa amran axmed cali waxa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan Itoobiya 2015 haddaba haddii ay maqlayso amran axmed cali ama ay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda la gaarsiiyo yaxya axmed iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay wisil. baafintina maanta naga intaa
caysho iyo faysal waa ay mahadsan yihiin dhegeystayaal. baafintaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa guud ahaan idaacaddeenii duhurnimo oo ciise xaaji cabdulla uu soo saaray, anigoo ah Kawthar Maxamed Cabdulaahina aan idinla socodsiinayay. dhegeystayaasha uu barnaamijka dhaafay waxay mar kale dib ugu dhegeysan karaan boggaanu internetka ku leenahay ee bbcsomali.com. sidoo kale waxaad ka akhrisan kartaan website-ka BBC sheekooyin dhowr ah oo halkaasi ku daabacan, oo ay ugu horeyso sababta Minnesota ay ugu soo badanayaan dhaca gawaarida iyo kuwo kale oo badan. dhegeystayaal, tan iyo kulankeena xiga 5 galabnimo waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo. This is the BBC. There are no programmes on this channel at present. Details of all our services are at bbcworldservice.com. This is the BBC. There are no programmes on this channel at present. Details